shirkii inoo socday maanta gabagabuu marayaa waxaana doonaynaa insha allah gabdhaha cod ay ku midaysan yihiin inay ku soo saaraan warmurtiyeedka isaga ah waxaan isla filayaa inay noo akhrin doonta marwo idil oo ka mid ah murashaxiinta u qarabeysa kuraasta federaalka kadibna madaxda ayaa insha allah noo soo xili doona shirka. بسم الله الرحمن الرحيم ورمرتيه laga soo saaray wada tashiga isku xirka haweenka musharaxiinta labada aqal ee baarlamaanka waxa magaalada Kismaayo ee caasimada ku meel gaarka ee dawlad goboleedka Jubbaland ku soo gabagaboobay kulan lagu la fagurayay ka qayb qaadashada haweenka ee siyaasadda u doodista qoondada haweenka sida ku qoran dastuurka dawladda Jubbaland kulanka oo socday muddo 3 maalmood ah ayaa waxa ka soo qayb galay hal doorka haweenka dawladda Jubbaland kuwaas oo ka kala socday haweenka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada haweenka haya xilalka sarsare ee dawladda ururada bulshada aqoon-yahanada ganacsatada haweenka u sharaxan kuraasta federaalka ee dawladda Soomaaliya kadib wada tashi falanqeyn iyo aqoon isweydaarsi dheer oo looga hadlayay arrimaha kor ku xusan waxa ka soo baxay qodobada soo socda marka hore waxaan tacsi u diraynaa eheladii iyo qaraabadii uu ka dhintay marxuum Dr. Yuusuf Axmed Gaaciye oo gacan ka xaq daran ku dishay magaalada Kismaayo waxaan alla u weydiinaynaa oo alla u baryaynaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala naxariistii janno ka waraabiyo. Number 2 geedi socodka siyaasadda xilliga kala guurka ee Soomaaliya waxa dalku u baahan yahay isu tanaasul iyo wadar ogol in looga gudbo iyo in uu heelanaan joogto ah loo sameeyo waxaan ka wanaacsanahay isqabqabsiga siyaasadeed ee ka dhex jira hay'adaha federaalka ah waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada oo idil inay meel iska dhigaan danaha gaarka ah oo kala qaybinaya bulshada iskalana shaqeeyaan si wada jir oo ku qotonta midnimada qaranka iyo danta guud ee Soomaaliyeed. Number 3 waxaan ku bogaadinaynaa dawladda Jubbaland xaqiijinta qoondada haweenka ee ku xusan dastuurkeeda 15% taasoo ay dawladdu xaqiijisay helida 12% waxaan rajaynaynaa in golaha wasiirada ee la filayo mar dhow inuu ku dhawaaqo madaxweynuhu inuu mar labaad xaqiijiyo qoondada gabdhaha 15% sida dastuurka ku xusan. Number 4 si ay dawladda u awood siiso musharaxiinta gabdhaha waa in jifooyinka leh 3 kursi mid kamida ay u tartanto gabar oo kaliya ama haweenka oo kaliya ay u tartamaan. 5 furitaanka madal haweenka Soomaaliyeed ku dhiirigeliya taageerana siiya kuwooda u tartamaya kuraasta siyaasadeed. Number 6 in ergada doorashada laga siiyo haweenka 50%. Number 7 in haweenka Soomaaliyeed ku hadlaan cod midaysan oo ku aadan ka qaybgelinta haweenka go'aan gaaridda arrimaha masiiriga ee dalka Soomaaliya. Number 8 in la yareeyo caqabadaha ku gudban haweenka dhanka ka qaybgalka siyaasadda oo ay hormuud ugu tahay gabdhaha oo lagu faquuqo qoyska ay u dhaxdo. Number 9 shirka wuxuu dhiirigelinayaa haweenka u tartamaya kuraasta xildhibaanada aqalka hoose iyo aqalka sare ee Soomaaliya. shirka wuxuu baaq ku soo saaray qodobada hoos ku xusan. 1 in odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ay ka fogaadaan fal kasta oo keenaya ka dhan ah gabdhaha Soomaaliyeed ee u tartamaya kuraasta siyaasadda. 2 in guddiga doorashada heer federaal iyo heer gobol ay ka yareeyaan 50% lacagaha fiiga ee gabdhaha laga qaadayo. 3 guddiga heer dawlad goboleed in laga siiyo haweenka xubno muhiim ah si ay u helaan ololahooda ama uga qayb galaan ololahooda musharaxnimo waa cid u fududaysa. wabillahi tawfiiq.